badii baa ii muuqatay badii baan tagay biyihii baan lagu halagalay quraan baan akhriyay aayad kursi baan akhriyay waxbaan akhriyay meeshii waxaan joogaa quraankiina waa socda badii baa ilaahay horteyda ka soo bixi ilaahay baa itus ilaaha ku mahadsan quraanka baan akhriyay aayad kursi baan akhriyay ilaahu badaan wixii ku jiro oo sixir aan lagu dhibaatayna ilaahu itus baan waxaa hirka soo riday bac isku xirxiran hirka soo tuur agteeda bab ku soo dhaafay aayad kursi baan akhriyay bacdi baan qaaday biyahan kala baxay waan furfuray bacdi malaay baa ku jiro malaayga caloosha uurka uu ka dooxay urku jirto waa laga saaray waxaa ku aruursan waxyaabo sixir aan ku aruursan waxaa ku xiran malaayga dabadiisa dambana waxaa ku xirxiran xarga iyo waxbaa ku xirxiran uurkiisa waxaan ka soo bixi waxyaabo guntimo oo 7 guntimood ah quraan baa akhriyay ilaahay baa baryay ilaahay waxaan gubo oo ilaahay waxaan burburiyo ilaahay awoodiis ilaahay isaga awood leh awoodiis ilaahay igu tusay waxaan ilaahay ku baabaasho oo ku guba ilaahay ka baryay wixii aan quraanka markaan ku akhriyay aayad kursi aan ku akhriyay birbinaas iyo birbilfalaq iyo waxa quraan akhrin karo dhan aan ku akhriyay bacdi iyo bahalkii malaay ku jiray iyo waxyaabihii meesha ka buuxay dab qabsado isla gubteen alxamdulilah ilaaha ku mahadsan marka aniga waxaan dareemay markaas wixii ka dambeeyay caafimaadkayga maasha allah inoo noqdo maalintii afaraad ayaa waxaa dhacday anoo ilaahay aad iskugu xiray oo aad ilaahay u baryayo oo qof madluun oo la dulmiyay ayaan ahaa oo waxay dulmiyay mashruucadiin ha ahaado ama insi ahaado marka qofka madluun kale mar walba ilaahay uu gargaaraa mar walba nasriga ilaahay uu imaanayo الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودوا هذا وراليال كسودوا هذا البرنامج تحنينا عن طنو أو كذا شيء طنو قرآنك إلهي إنه داويها كسودوا هذا وراليال حرمتا وراسارك الهدى وحا ما أنت برنامج كنا مرتين نوبة أم عائشة أو حنو سنة إنك بدن لما تنسنا حنونا كذا دوسان مرتين كدب إلهي كعافية قرآنك إلهي كعافية إيو قاب عصب وانا هذا أو أديك سنة أنا قرآن كنا أخرنينه وقرآنك إلهي لأخرنيه ولدعاء السنة هذا أنا برنامج عصب وضدك تقول لك لا يابان وإذا هذا لغو أكرا يعني قفك السحران سيدو سحرك أكرا أما جينك هاي سيدو أكرا جينك علم يقولي إلهي نبرئ وياي أو علم الجيران ما أنت علوم تلبرتك كمدة أو أنا كل جري وح خرافات أنا وقرآنكي qofkii ku akhriyayno oo ilaahayna la kaashanayo si uu ugu fududaato qofkii oo arko oo ilaahay u baryayo u weydiisanayo ducadaasi maanta yaana ka hor dhacin barnaamijka waxaa nooga sheekeyn doonta Ummu Caaisha soo dhow barnaamijku soo dhow waa dhow Ummu Caaisha bal waxaa laga warantaa muddo inta leeg ayaa xanuunsaneed waxaan xanuunsanaa muddo aad u badan runtii 20 sano ayaan xanuunsanaa meelaana tagin mala meelo badan ayaan tagay qaab nooc lagu hayo marka xanuunkaaga Caaisha xanuunkayga sixir buu ahaa marka aad baa u dhibanaa aad waxba ma qabsani karin waa iska jiifay wax xunkayga uu yaraa waa qof iska mariil oo iska sariirtaas ka saar baa ahaa in badan kadib inta xanuunsaneyd meelo cilaajiyaad tagtay meelo badan baan tagay meelo badan aan tagay magaalooyin badan iyo safaro badan waan galay الحمد لله markaasi markaad calaaj tagtid oo kale xoogaa fudud oo dareemaysa ha fudud waan dareemay xoogaa laakiin wali waxaad dareemaysaa wali wax jiraan wali inay wax jiraan waan dareemay laakiin fudud iyo nafis waan yara dareemay walaal qofka markuu calaaj tago ama quraan lagu akhriyo quraanka ilaahay waa daawo waliba khaasatan shayaadiinta iyo waxyaabaha sixirka daawo ayuu u yahay asoo dhamaan daawo oo ah oo ilaahay yiri وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن كله أسوأ دواء
asagoo daawo ah haddana shayaadiintu waa ugu sii daran yahay uu ku gubtaa. maama umu caaisha waxaa dhacaysay inay tagto meelo badan quraan saaro ah ama gurigeeda lagu quraan saaro oo wadaado loogu waco siday iiga sheekaysay qisadeeda ka hor inta ka hor ay iga sheekaysay qur-aanka marka lagu akriyo fudeed bay dareemi jirtay oo xoogaa way soo yarroonaan jirtay. laakiin waxaa jirtay cilad oo ah sixir marar badan loo sameeyey oo sixirkii uu jiray weli oo yacni taa waxaa laga dheehan karaa qofka markii qur-aanka lagu akriyo in shayaadiintii u wakiilneed sixirkaasi inay afcaashii loogu talagalay ay fuliyaan. markii qur-aanka lagu akriyo qofkii shayaadiintii xoogaa ama baaba-ayaan ama dhibaato weyn soo gaarayso qofkii xoogaa u marka dareemaya nafis yar kadib sixirkii waa uu jiraayo mar labaad haddana shayaadiin kaloo cusub oo hor leh inay haddana shaqadii meeshay kasii wadi doonaan oo amarkii fulintiisa meeshay kasii bilaabi doonaan. marka maama umu caaisha nooga sheekeyn doonto barnaamijkani. maama umu caaisha waxaad nooga warantaa marka xiliyadaasi qur-aanka marka lagu akriyo xoogaa fudeed baa dareemi jirtay bilooyin 2 bilood sanad muddo caafimaad baan dareemi jiray alxamdulilah. marka kadib haddana xaaladii sidii hore haddana ku yar noqonaysa. marka kadib muddo laga soo wareego in muddo aan qur-aan soo saarin xanuunkii haddana meeshiisa unbuu iga sii bilaabi jiray. waa gartay mar walba waxaan ku ordaya shifo un qur-aanka markii la saaraan nafis baan ka dareemayay. meelo badan oo kamid ah oo quraano saaro kala joogto oo kala duwan waa tagtay. meelo badan waan tagay dalka ahaato meelo kaloo dalka ka baxsan ahaato. alxamdulilah. waxaa inooga warantaa marka hadda maanta say tahay xaaladaada? hadda maanta aad baan u ladanahay alxamdulilah ilaah baa mahaddaa iskale. waa gartay waxaa inooga warantaa markaa qur-aan saa ka timid oo qur-aanka aan kugu bilaabay maalintii koowaad aan kugu bilaabay qur-aankii sidee wax u aragtay qaabkii wax u dareentay والله maalintii koowaad maalintii labaad maalintii saddexaad wallahi maalintii koowaad waxa ma arkin maalintii labaad iyo maalintii saddexaadba maalintii afraad ayaa waxaa dhacday anoo ilaahay aad iskugu xiray oo aad ilaahay u baryayo oo qof madluun ah la dulmiyay ayaan ahaa oo waxa dulmiyay mashayaadiin ha ahaado ama insi ahaado marka qofka madluun kale mar walba ilaahay uu gargaara mar walba nasriga ilaahay uu imaanaya marka waxyaabo badan oo waxay dhibaayay kamid ah ayaan arkay. waxa kamid ah marka qaabka wax u aragtay adigoo xaruntii quraanka jooga oo quraanka lagu akhrinayo ayaa wax aragtay? anigoo xaruntii quraanka jooga oo quraanka lagu akhrinayo baa ilaahay waxa i tusiyay waxyaabo badan oo kamid ah dadkii dhibaataynay baqar kamid ah. waa gartay nooga bilaab marka maalintii ugu horeysay oo waxaad aragtay qaabka wax u aragtay xaruntii quraan saarka joogtay quraankii baa socday kadib maxaad aragtay markii ugu horeysay? xarunta quraan saarkaan joogo quraankii baa socday la akhrinayay waxaa ii muuqday wabigii afgooy. waa gartay marka halkee joogtay adiga marka? quraan saarkii baan joogaa. ilaahay wuxuu ii muujiyay wabigii afgooy. wabigii afgooy baa horteyda ka muuqda. waa gartay wabigii afgooy horteyda wabigii markaan tagay quraan baa akhriyay aayad kursi baan bilaabay ilaah baris baan bilaabay allaan baryay ilaahayow waxaan dhahay ilaahayow webiga u jeedaa meeshaan ilaahow meeshaan wax iga yaal ama sixir ama wax ilaahow i tusi rabbiyo. marka yaxaas baa webigii kasoo booday isla markiiba anigoo meesha taaganba yaxaaskii soo booday webigii kasoo booday quraan baan bilaabay ayad kursi baan bilaabay yaxaaskii waxba uu soo mantagay oo soo daaday calooshiisa uu kasoo daaday waxyaaba isku xirxiran oo isku guguntan. quraankii baan akhriyay ilaah baan baryay wixii way gubteen dab baa qabsaday. yaxaaskii macal wixii xargihii iyo wixii way isla gubteen. marka adiga unbaa ujeeda anaga waxba ma arkeen? aniga unbaa ujeeda aragtida xaggayga unbay ahayd oo ilaahay wax ituso inbay ahayd. insha allah qofkii alla isku xirana oo in badan samrana wax uu arkaya insha allah. marka maxaa xigay markan yaxaaskii markaad aragtay? yaxaaskii markaan arkay waxaa xigay god meel oo waxaan arkay god ah oo halkee ku taala webiga qarkiisa le webiga jinkiisa waa gartay meeshii baan arkay af bay lahayd waa kor istaagay af yar baa u banaanaa quraan baan akhriyay marka aad godkaas aragtay anaad ii sheegayso waxaa ujeedaa godkaas? waan kuu sheegay waxaan ku dhahay sheekh waxaan arkaa god baan arkaa ku dhahay godkii baan quraan ku akhriyay godkii waxyaabo badan ah kasoo baxay
waxyaaba isku xirxiran waxyaaba aanan garanayn markaas waxyaaba cijiji timatima iyo waxyaabihii baan qur-aan ku akhriyay aayad kursi aan ku akhriyay ilaahay baan baryay waxyaabihii haddana way gubteen dab baa qabsaday. maxaa xigay markaa kadib waxay markaa aragtay gudkaasi oo wixii dhan ay gubteen maxaa dareentay markaas maxaa dareentay niyad ahaan waxaan dareemay inuu ilaahay gargaarkiisa imaaday oo nasriga ilaahay uu yimaaday oo hadda wixii ka dambeeyay ilaahay caafinaya dareemay. waa gartay oo qur-aanka ilaahay inuu wax ka taraayo qur-aanka ilaahay inuu daawo yahay oo shayaadiinta wax ka taraayo ilaahay maxay ahayd qofkii tala saartana aan marnaba khasaarin ama hoogin. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قفك هذا إلهي مر اسكو حرو إلهي تلا صارت إلهي وديستو وحوالله ما هن إلهي وأفضيني واقرت مركا محاحقي مركا waxaan arkay nin baan arkay واقرت nin markaan arkay waa nin noocu ka qaabku ah nin aan garanayo horay aan u garan jiray واقرت ayaan arkay واقرت ninkii haddaan arkay waxaa yidhi waxaan dhahay maxay ahayd ninka wuxuu dhahay ninka ku sixraan ahaa maxaa ahayd shaqo nin baan u jeedaa baan ku dhahay ninka weydii muxuu ahaa baa tiri ninkii baan weydiiye waxaan dhahay maxaad ahayd ninka wuxuu yiri waxaan ahay ninkii sixirka keenaa ahay oo sixirka meesha keenaa ma adigaa saaxirkee baan ku weydii baa tiri ma asagaa saaxirkee mise oo loo soo dhiibay wuxuu yiri anaa saaxirkee ilaahay baan baryay ninka horta waan kasii jiray gabadhiisa ay shaqayn jirtay gabadhiisa shaqaale ii ahayd ninkii gabadhiisa oo meeshan ku arkay marka ku sheegay ninkii gabadhiisa u jeedaan ku dhahay kadib waxaa dhacay markaan ilaahay baryay ninkii gabadhiisa meesha ku arkay ninkii gabadhiisa waa la xirxiray wax xirxiran uma jeedo geed baa lagu xiray ayagoo meesha taagan webiga agtiisa taagan webiga agtiisa la wada taagay ninkii iyo gabadhiisa soo taagan waad arkaysaa kadib maxaa dhacay ilaahay baa baryay ilaahay baa isku xirtay ilaahay baan baryay ilaah waxaan dhan shartooda iga qabo ilaahu iga qaado ilaahay baan baryay ilaahay waa la xirxiray wax xirxiray ma ujeedi وما يعلم جنود ربك إلا هو إلهي قفك اسكو ديبا وكفرين ciidamadiisa ilaahay waa farabadihi waxaa kamid ah malaa'ikta kamid ah waxaa kamid ah insiga kamid ah waxaa kamid ah jinba kamid ah malaa'ikta ilaahay yani junuudiisa waa farabadihi qofka hadduu ilaahay isku xiro waxaa shardi ah qofka ilaahay isku xiro qalbigiisa ilaahay ku xiro ilaahay u baryo oo qeyrkiisa caabudin hadduu ilaahay baryo ilaahay ciidamadiisii ayuu yani garabgalayo u kaalmeynayo waa gartay nimankii waa la xiray ninkii gabadhiisii meesha lagu xiray kadibna ninkii naagtii gabadhii markii la xiray maxaa xigay marka geed baan arkay webiga ka muuqda waan ku sheexan lahay geed baan arkaa geedkii waa qur-aan ku akhri baa tiri qur-aan baan ku akhriyay waxaan dhahay geedkan musbaara ku tataaga waxa ay tiri ka siib musbaaradii baan ka siibay maalintii xigtay geed meesha ka muuqda ama masaamiir ka taagan yihiin waan kasii siibay masaamirta ka bixisay geedka webiga ku yaala waa gartay maxaa dareentay markaas masaamirta markaa geedka ka bixisay waxaa markaasda qur-aanka inuu igu socday laakiin nafis weyn aan dareemay qur-aankii baa la aqrinayay meesha xaruntaan jooga nafis baan dareemay kadib maxaa xigay marka aad aragtay maalintii xigtay ayaa waxaan tahay guri aan deganaan jiray maalintaas qur-aanka waa dhamaaday meesha ku dhamaaday waxba ma arkin maalintii xigtay ayaa waxaan tagay waxaa arkay guri aan deganaan jiray halkuu ku yaala guriga wuxuu ku yaalaa xaafada Taleex gurigii baan tagay guriga arinta ka soo galay gurigii baan joogaa baan ku sheegay guriga aan deganaan jiray waan shaqo arkaa iyo muuqdo waxaan ka ilaabay maalintii hore oon tagay webiga ii muuqday waxaan ninkii meesha ku arkay ninkii gabadhiisii intaan la xirin ka hor webiga isku aragnay waxaa iri
waxaan dhahay sixirka aa samaysay muxuu ahaay markuu yiri anaa sixirka sameeyey arrimihii uu ii sheegay markaasuu yiri sixirul marad aan ugu talagalay sixirul marad baan sameeyey yiri sixirkan macnaha waxaa ugu talagalay marad jira marad dhahaayna weligaa iska jiranaato iska jiifto sariir saarnaato waxba qabsanin maxaa ku salaysan markuu arrinkaa kugu jawaabay maxaa tiri isaga dhankiisa maxaa ku tiri ma quraan baad ku akhrisay maxaa see yeeshay isaga markuu saa dhahay quraan baan ku akhriy ilaaha kaa magan galaan dhahay ilaaha kaa weyn markiiba markaa isaga waa la xirxira way xirxiraan uma jeedi laakiin isagii gabadhiisii waa la isku xirxira kadib maalintii xigtay waxaan imaaday gurigii aan deganay qur-aanka lagu akhriyey waxaa ii muuqatay oo horteyda ilaahay kasoo muujiyey guriga aan deganay oon ka guuroon deganaan jira guriga wuxuu ku yaalaa xaafada muqdisho xaafad ka mid a xaafad taleex gurigaan imid gurigii haddaan imid qur-aan baan akhriyey ilaahay baa bariyey guriga markaan imid marka waxaan arkay guriga waxaan kula kulmay naag baan guriga kula kulmaa maxaa ahayd baan dhahay adigana waxay igu tiri anigana sixir baan keenay iska kaydaa iska keeya cafi sixir intee gelisaan dhahay sixirka xageed ku aastay marka waxay tiri aniga meel kuma aasin biyaha fuustadaan ku riday waa cabtay calooshaadu tagay marka mar dambe uma noqonayay mar kalena waxa uma sameyn halkaas maraa wax sameeyey iska kaydaa marka naagta maxaa ku dhehayso kale adiga wax kale oo qur-aankiina waa shidnaay qur-aankii waa shidnaay anigana qur-aan baan akhrinay ayad kursi baan akhrinayay qur-aan baan akhrinayay ilaahayna waa barya ilaah isku xire bas guriga markaan aan soo galay itlaantii markaa sidii aan iskaga dhaafay waxaa meeshii fuustada ayna ooli jirtay ayaa waxaa arkay god yaalla meesha god baan ku arkay god baa meesha ka qodan godkii baan qur-aan ku akhriyey godkii waxyaabo baa kasoo muuqmuuqdo xarga iyo waxyaabo isku xirxiran cijiyo timo waxyaabahaas aan godkii ku arkay godkii baan aayad kursi ku akhriyey qur-aankii baan ku akhriyey godkii iyo wixii ku jiray way isku gubteen godkii wixii urkiis ku jiray way gubteen haddana waxaan soo galay oo ilaahay i tusiyey qolkii aan deganay joodarigii aan ku jiifi jiray gurigiinbuu ku dhexyay sida gurigii waa marka joodarigii baa haddana ii soo muuqday oo meesha yaallo marka gurigii markaan soo galay waan dareemay marka waxaan dhahay gurigaan kolleyba wax unbaa yaalla qur-aan aan akhriyey aayad kursi aan akhriyey ilaahay baan baryey wax qolkan ku jiro inuu ilaahay i tusaa ilaahay ka baryey wixii haray oo sixir ah oo ii dhibaataynayay intaasoo sano inuu ilaahay indhaha ii saaro ilaahay i tuso markaad ducaysatay oo ilaahay isku xirtay inuu ilaahay ku tuso waxaa dareentay wallaahi waxaan dareemay alxamdulilah farxad weyn baan dareemay niyaddayda soo gashay marka joodarigii baa waxaan ku arkay waxyaabo maradiisa jeexan oo wax ku jirjiraan kasoo jeejeedaan waxyaabo sixir waxay isku xirxiraan sixiraan u malay waxyaabo isku xirxiran bay ahaayeen iyo waxyaabo guntumooyin oo isku xirxiran bay ahaayeen cijiyo iyo timo iyo u badnaayeen wixii baan qur-aan ku akhriyey qur-aan baan ku tufay wixii banaankaan keenay way gubteen dabbaa qabsaday marka adiga laakiin daata ahaan waxaa u fadhidaa meeshii qur-aansaarka dhex fadhiya ilaahay ubaa waxaan ii muujinaa itusa hortayday ka muuqanaya shaashad ahaan bay hortayda oga muuqdaa marka waxaan soo galay haddana qolkii ciyaalka i seexanayeen qolka ciyaalka seexanayeen haddana aayad kursi baa aqriya ilaahay baa barya qolka waxaa ku jiro sariirta iyo safitada inta u dhexayso baa waxaa ku jiro sixir joodarigii baan qaaday sariirta ilmaha ku jeexanayeen sariirta ilmaha inta u dhexaysa safitada sariir badan baa qolka yaala sariir ka mid ah ku arkay
وحيانا بناك صادقي أخرجي وحياة الإسكوحرة وحياة سسئ وحياة قرقود أما قرانيني سسئ وحياة قرآنك أخري إلهي وان بريه إلهي وان بريه إلهي وان بريه وحي وان أسكباب إلهي قبل meeshaasi waxaa ka dareemaynaa in ay jirto yacni saxarada in ay sameeyaan intaasoo jeer sixir buu sameeyey waxaa laga yaabaa qaabka ugu talagalay inuusan u dhicin mid kale ku celinayo mid kale ku celinayo ilaah baan ka magangalnay shartooda qofkii dhibaatadaas la nool ayaa garan karo ama qofkii dad ay ka xanuunsadeen ama qofkii qof ka xanuunsan yahay ayaa garan kara ama qofka xanuunkaas hayaba ayaa garan kara dhibaatada ay dadka ku hayaan marka waxaad dareemaysaa balfiiri caadootinimadiisa hal xaba kuma ekaanayo mid kale ku dari mid kale ku sii dari yacni hadduu kii hore duugoba u cusboonaysiini waa gartay laakiin maanta waxaa caddaatay in ilaahay qur-aankiisa uu ka adag yahay qur-aanka ilaahay inuu ka adag yahay sixirka inuu ilaahay qur-aankiisa uu ku buraayo sixirka in muxuu ahaay waxaa maanta sii caddaatay in aysan isqarin karin xataa haddii sixirka meeshay doonaan ku aaseen haddii qaaradaha shanta qaaradood geeska ugu dambeeya lagu aasay adigoo soomaaliya joogto lagu sameeyey ilaahay awooddiis waxba lama ahan inuu ku geeyo qaaradii kale oo aad aragtid wixii oo ilaahay ku buriyo ilaahay awooddiisi waxba lama ahan qofkii ilaahay tala saarto ilaahay isku dhiibana ilaahay waa ku filan yahay waxaa garan karaa runtii xaqiiqadaas waxaa garan karaa qofkii yacni arkaa qofkaan arkin oo looga sheekeeya hadda saan maqla waxaa laga yaabaa in uu u maleeyo waxyaaba iska khiyaali inuu yahay ama waxyaaba khuraafaad inuu yahay laakiin haddii asaga indhihiisu ku arko asaga garan kara inay waxaa xaqiiqa yihiin haye allow maalintii xigta haddana imaaday meeshii shafaada alhudaa waxaan arkay baddi baa ii muuqatay maalintii saddexaad waanka aad timid oo aragtida maalintii saddexaad kugu ahayd baddi baa ii muuqatay baddi baan tagay biyihii baan lugaha la galay qur-aan baan akhriyey aayad kursi baan akhriyey waxbaan akhriyey meeshii waxaan joogaa qur-aankiina waa socda baddi baa ilaahay horteyda ka soo bixi ilaahay baa itus ilaaha ku mahadsana qur-aankii baan akhriyey aayad kursi baan akhriyey ilaahu baddaan wixii ku jiro oo sixir aan lagu dhibaataynaya ilaahu itus baan dhahay waxaa hirka soo riday bac isku xirxiran hirkaa soo tuuray agteydii bam ku soo dhaafay aayad kursi baan akhriyey bacdii baan qaaday biyahan kala baxay waan furfuray bacdi malaay baa ku jiro malaayga caloosha uurka uu ka dooxay urku jirta waa laga saaray waxaa ku aruursan waxyaabo sixir aan ku aruursan waxaa ku xiran malaayga dabadiisa dambana waxbaa ku xirxiran xarge iyo waxbaa ku xirxiran uurkiisa waxaan ka soo bixi waxyaabo guntima oo 7 guntimood ah qur-aan baa akhriyey ilaahay baan baryey inuu ilaahay waxaan gubo oo ilaahay waxaan burburiyo ilaahay awooddiisa ilaahay isaga awood lehay awooddiisa ilaahay igu tusay waxaan ilaahay ku baaba'asho oo ku gubaan ilaahay ka baryey wixii aan qur-aankii markaan ku akhriyey aayad kursi aan ku akhriyey birbilnaas iyo birbilfalaq iyo waxa qur-aan akhrin karoo dhan aan ku akhriyey bacdii iyo bahalkii malaayig ku jiray iyo waxyaabihii meesha ka buuxay dab qabsado isla gubteen alxamdulilah ilaaha ku mahadsan marka aniga waxaan dareemay markaas wixii ka dambeeyey caafimaadkayga maasha allah inoo noqdo fudeed baan dareemay alxamdulilah ummadda maxaa leedahay marka waxyaabahaas dad qaar aan xumayna markay maqlaan aniga kula hadlaayo dadkii weli waxma arkin weligii waxma arkin sababtoo wax xanuun imayn balse ma qaarkood waxaan isleeyahay dadkii qaarkood markay arkaan xarumo kale oo aan joognay oo kale dad qaarkood wax arkay oo qisooyinka noo soo socday aan ka hor dhacay oo qariib ah dad aragtid aad rumaysanayninba leeda waxaan wax khiyaali ama tahay oo dadka maxaad kula talinaysaa maxaa leedahay arrintaas wallaahi dadka dhiban oo dadka ummadda muslimka oo dhiban meel walbo ilaahay horta caafiyaan leeyahay dadka dhibaataynaya allah ka qabtaan leeyahay dadka waxaan kula dardaaramaya inay qur-aanka ilaahay isku akhriyeen oo qur-aanka ilaahay uu daawo yahay ilaahay noo sheegay inuu qur-aanka daawo yahay
marka waxaan dadkula dardaarmayaa inay qur-aanka ilaahay isku akhriyaan oo qur-aanka ilaahay lagu akhriyo isku akhriyaan adkaaraha akhristaan sidoo kale weyse qabka aysan ka tegin adkaaraha way badan yihiin adkaaraha ay iska akhristaan qur-aanka ay akhristaan guriga intay joogaan ilaahay isku xiraa ninkii ilaahay isku xiro arrintiisa ilaahay wuu toosinaya qisadayn halkaas ay nagu gabagabo tahay waa tan iyo kulanti dambe insha allahu tacaala waxaa inoo soo socda qisooyin kaloo la yaab loo cajiiba hadda waxaan ku sugannahay muqdisho khaasatan xarunta alhuda ayaan ku sugannahay oo xaafadda shirkoole ku taalo magaalada muqdisho muddo dheer safar kadib oo dad badan oo waxaa noo dhiman qisooyin fara badan oo aan kala soo kulannay gobolka gedo magaalada beled xaawo oo xarun naga furay oo aan ku qaabilnay dad fara badan oo boqolaal gaaraya oo dad badan qaarkood qisooyin mid arrimahan kasii cajiibsan loo hayay laakiin ay noo suurtogeli weysa qaarkood inaan wada soo wada duubno dhanka meesha gobol ah oo kaamirooyinkii iyo farsamada iyo waxyaabaas ay ku yar yihiin balse qaar ka mida oo aan haynay insha allahu tacaala xalqooyinka soo socda barnaamijka soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.